xiriirinta qaraabadu kamid tahay asbaabta lagu gaaro rizq waasica sabab maayelay rabbigeen tabaaraka wa taala baa wuxuu leeyahay wixii aad bixisaan bedelkiisaan idin siin nabigeenuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay asmaa bint abi bakr wuxuu ku yiri asmay bixi waa lagu siinay ha xanibin hadaad xanibto waa laga xanibi ha cishanin hadaad cishato waa laga cishana si waa lagu siinay hadaad cishatana waa laga cishana in badan oo aadamaha kamida waxay rumaysan yihiin ama aaminsan yihiin wuxuugaaga ku soo galay hadaad ku fara adeegto inaad ku taajiri sida kale oo ka soo horjeeda ayaa sax ah bal markastood fara adeegto adigana waa lagaga fara adeeg hadii lagu siiyana waa un imtixaan iyo ibtila mooye wax barakaysan ma aha saas daraadeed bixi waa lagu siinay ha cishanin gacantaada ha furnaato asbaabta waxa kamida al-istighnaa'u bil halal 'an al-haram inaad xalaasha ku gaabsatood xaaraanta kaga kaaftoonto duruqda aad wax ku kasbanayso wax ku raadsanayso inay noqoto jidkii shariicadaadu ku ogolaatay oo kali ah wixii shariicadu diidayna aad ka fogaato ribada iyo xaaraanta iyo qishka iyo laalaabka inaad isaga fogaato ood ku gaabsato jidka alla xalaaleeyay tabaaraka wa taala xeel nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay malakul jibriil baa qalbiga wuxuu ii galiyay inaysan nafina dhimanaynin ilaa ay dhamaysato rizqeedii iyo ajasheeda naf dhimanaysa hadaad aragto rizqeedii baa soo dhamaaday ajasheediina waa soo dhamaatay waxba uma laabno markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam allah ka baqa oo qurxiyo wanaajiya jidka aad wax ku raadinaysaan xalaasha qaata xumaantana ka taga xaaraantana ka taga markaas nabigu wuxuu ku daray sallallahu alayhi wasallam daahsi aad daahsateen rizq allah idin soo socday sugid la'aan aad sugi weyday iyaynan kugu xambaarin inaad ilaahay rizqiisa ku raadiso jid khaldan macsiyo inaad ku raadiso maxaa yeelay ilaahay agtiisa khasnadaha yaala taacadiisa lagu furtaa ee macsiyo lagu ma raadiyo jid khaldan hadaad wax ku raadiso oo ribo iyo khiyaano iyo ixtiraam marin iyo shariicada khilaafto oo ay noqoto muhiimadaadu waxaan ku cuninba waa la cunaa waxay gacantaadu gaadhana waa la qaataa ilaahay tabaaraka wa taala waa ku imtixaanaya hatta hadii lagu siiyana waa midaan barakaysnoodad ku gubanayso saas daraadeed xalaasha ku gaabso iyadaas ilaahay barakaynaya iyadaana insha Allah taala ilaahay tabaaraka wa taala ku wasiinaya waxa kamida ducada asbaabta rizqa waasica lagu gaaro nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ducadiisa waxa kamid ah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Allah waxaan ku weydiisanayaa cilmi wax anfaca cilmi lagu amal falaway wa amalan salihan amal wanaagsan oo la aqbalana waa ku weydiisanayaa wa rizqan wasi'an mubarakan rizqi wasi'o balaadan oo hadana la barakeeyayna waa ku weydiisanayaa saxaabadiisa qaar kamid ah nabigu waa ugu duceeyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi rizqa barakaysan ee wasi'a marka inaad rabbiga barido isaga khasnadihiisa buuxaan isagana wax bixiyo isagana diida inaad rabbiga gacanta u horsatood barido inuu ilaahay xiriiriga ka saaro oo rabbi tabaaraka wa taala rizq waasic oo barakaysan ku siiyo asbaabtay kamid tahay lagu gaaro rizq waasic waxa kamid ah in dadka marka la mucaamaloonayso wax kala iibsiga suuqa beeca iyo shiraha beeraha mucaamalaadka aadamaha aad la mucaamaloonayso inaad ku dadaasho run iyo cadayn waa inaadan dadka been u sheegin waana inaad wax cad kula mucaamaloto waa inaadan ceebta badeecada u qarinin waana inaadan ka been sheegin waa inaad run sheegto waxayna nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay labada ruux ee wax kala iibsanayay intay wada joogaan yaani wax weeyaan beecoodu ma dhicin intay wada joogaan khiyaar bay leeyihiin haday kala tagaan oo midba u dhaqaaqo beeci waa laazimi haday isu cadeeyaan haday run isu sheegaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii jirana isu cadeeyaan mid walba wuxuu qaatay baa loo barakeeyaa kan lacagta qaatayna lacagta loo barakeyn kan badeecada qaatayna badeecada loo barakeey haday been sheegaan ceebna isu qariyaan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam beecooda barakadiisa la baabi'inaya waxaan baraka lahayn baad qaadateen sidaas daraadeed khalqiga muaamalada Allah muaamaloonayso beeca iyo shiraha iyo tacaamulka hagaaj wixii meesha ka soo gala wax barakaysan oo wanaagsan buu noqonay laakiin hadaad shaqo ka dhigato laalaab iyo khiyaano iyo wax isdaba marin iyo dadka been u sheeg ilaahay tabaaraka wa taala waa ku imtixaanaya waana lagu gubaya inta soo dhan hadaad samayso waxa muhiim ah ghaninimada rasmiga ah waa qanaacada wax kasta hadii ilaahay ku siiyo
laakiin qalbigaaga aan lagu gelinin qanacsanaan iyo dheregsanaan iyo iimaan iyo deganaansho wax kasto lagu siiyo ku deeqi maayo وبالتالي ku xasili maysa waata nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xoolo badnim ma aha qaninimadu laakiin qaninimadu waa qaninimada qalbiga buu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi allah tabaaraka wa taala inuu ku siiyo qanaaco iyo qalbigaagu inuu ku xasilo raali ku noqdo wixii ilaahay ku siiyay ha yaraado ama ha badnaado وبالتالي marka waxaad noqonaysaa mar walba adoon shukriya oo ilaahay intuu siiyay ka shukriya